السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة وايد السلامين مال والبادونيدا كجوكتان كسو دوادا muuqaal cusub waxaan idin wadaa afarta isbaray ee timaha si degdeg ah ku bixiyo sidoo kale ka qayb qaadanaya timahaaga inuu ka joojiyo daadashada bixid la'aanta afalaaqda timahaagana kaaga dhigo kuba xariir oo qurux badan muuqaalka hadii uu soo gaaray fadlan like noo dheh sii share garay oo la wadaag asxaabtaada kale qof walba jeceshaan ugu wac qaybta commentiga hadii aad naga daawanayso page-ka follow inaan dhaahdo naga iloobin ama TikTok sidoo kale hadii aad naga daawanayso YouTube-kana subscribe noo saar furagan balaalka si aad ula socotid muuqaalada channel-ka soo galiyo insha Allah isbarayga koowaad waxa ka sameeynaya maskiga muriga aan amla wuxuu ka qayb qaadanaya inuu ka joojiyo timahaaga daadashada isbuuca koowaad sidoo kale tintaad wuxuu u diyaarinayaa bixid ilaa salka hoose uu nadiifinaya nafaqo dhameystiran si timahaaga u qaataan sidoo kale salka hoose wuxuu ka saaraya xasaasiyada agoolka ama taxab hadii aad ku leedahay mar walba ka soo fuqdo sidoo kale tintaad wuxuu ku siinayaa caafimaad ma sha Allah tabarakallah tin xabad weyn oo qurux badan oo kaaga dhigaya isagoo maskad laga dhigaa hore waa u soo galiyay haddana waa qaabka isbarayga looga dhigo insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan rajeenaya dhamaantiina dan afar qaanta ku shubta weelkan ma sha Allah tabarakallah biyo kulul waa waxa ku daraayo isbarayga dab ma saaraay dhamaantood biyo kulul la dhigi doona adigana waxa ku rajeenaya da isbarayada ay isticmaali jirtay karkarin jirtay qaabkan bal soo tijaabi faa'iidadiisana adiga arki doono timahana wuxuu kaaga dhigi doonaa kuba xariir oo aad u qurux badan mar walba jeceshahay timahaaga inay degdeg kugu baxaan isticmaal isbarayada sidoo kale sax productigaaga cuntadaada ha ahaato mid isku dheeli tiran hurdadaada ha ahaato mid saxan biyo cabkaagana ha bato hadii aad rabtid timahaaga inay dhaqsi ee dhabar ku tagaan waa sirta kaliya oo bixiso ma sha Allah tabarakallah isbarayga labaad waxa ka sameeynaya gargaday kaligiis wax kale kuma daraayay ama waxa qalalan loo yaqaano gargadayga ma sha Allah tabarakallah biyo kulul la dhigaya ma karkarinaysid kulli biyo kulul la dhigaa waa daboolaya si uu uunka ugu baxo danna isbaray meesha waxa ka soo baxayo cajiib ah inaba caadi ahayn timahaagana koritaankooda sare kugu qaadi doono aadna iga soo duceyn doonto insha Allah halka waxa ku soo diyaarsaday rosemary af Soomaali ma lahan laakiin rosemary loo yaqaana meel walba aad joogtid waa ka heli kartaa ma sha Allah tabarakallah rosemary isagoo qoyan isagoo qaleel labada buu jiraa midka qallalan waa midka isticmaalayo biyo kulul la dhigaya isagana waa daboolaya waa isbarayga saddexaad dhamaantiin waxaan rajeenaa muuqaalka inaad ka wada faa'iideysan doontaan like fara badan noo saarta si share gareysay ala wadaagta asxaabtaada kale marka biyaha ku daray si fiican isku qasaya si biyihii iyo isku dhaxgalaan rosemary-ga dan waa soo daboolay isbarayga afraad waxa ka diyaarinaya dhageera biyaha dhageera qaabka uu diyaarsan hada karkarin jirta karkarin wuxuu kugu keenaa madax xanuun timahaagana jijab ay bilaabayaan sidoo kale madaxana zaid ku xanuunaya marka karkarisid qaabkan daa u sameystid laakiin madax xanuun ma lahan timahana jijabkaaga ma keenayo timaha ku bixinaa woona ku qurxinaya dhageera waxa ka isticmaalay laba qaando caleenta aan ku darsanayo waxa waaye saliisaytuunka geedkeeda oo qalalan waa caleentiisa sidoo kale waxa ku darsanaya bay leaf ma sha Allah tabarakallah inta saa ka sameynaa saddex shay ka sameynaa isbarayga ugu dambeeyo dhamaantiin waxa rajeenaa inaad ka faa'iideysan doontaan isbarayadan dambiyo kulul ku shubay sida caadadii dhaqanka noo ahayd ma sha Allah tabarakallah isbarayada ha iska karkarinin hadii aad rabtid faa'iidadooda inaad dhaqsi heshid afarta isbaray sidaan u soo diyaariyay waxa meel dhigaya 5 saacadood ugu badnaan 6 saacadood markay meel ku yaalaan kadib aad isticmaalaysaa markii hadda ay ka soo wareegtay 5 saacadood kadib isbarayga koowaad soo qabtay muriinki amlaaga aha ma sha Allah tabarakallah sidaan qurux badan oo igu soo baxay adigana waxa ku rajeenaa inaad ka faa'iideysan doonto isbaraygan wuxuu ka joojinayaa timahaaga daadashada bixid la'aanta afalaaqda dhammaan timahaaga faa'iidooyinka u baahnaayeen dhan kumbuleedo ku yahay wuuna ka caabin doonaa xarunteena si toos uga heli kartaa muriinki amlaaga lambarka naga soo xiriir kartaan furuwa 441 shaashaduna idin kugu soo qoraa insha Allah xarunta xogta la yaaqshid gaar ahaan suuqa Tawfiiq ku soo dhawaada gacmo furan iyo alaab tayo leh intaba hadda isbarayga sidaan noogu soo baxay ma sha Allah tabarakallah dan caagana ku shubanaya sida caaga isbarayga ugu shubto ma sha Allah tabarakallah mask amala u maleysa isbarayna waay laakiin mask amal uu ekaaday ma sha Allah tintaadana afar qayb ka dhigaysa waa marinaysa isbaraygan si fiican u massage gareynaysa 2 saac kadib aad timahaaga ka dhaqaysa hadii ay daadashada xooli tahay waxa sameynaysa maal dhaafa u marsanay hadii aan mask ahaan u isticmaashid sidoo kale hada isbaray ahaan u isticmaashid labadaba ay iga soo duceyn doontaa hadda waxa ku darsanaa waa seeramka salka hoose nafaqeeyaha quudiyaha timaha xoojinayo daadashadana ka ilaalinayo isbaray anigoo sameysanayo kama maqnaado ina ku darsan waay seeramka muxuu ka caawinaa salka hoose inuu nafaqeyn isku dheeli tirin inta basiyo had si fiican iskugu qasay ma sha Allah tabarakallah isbaraygi ama biyihii maskiga ka diyaariyay sidaan igu soo baxay ma sha Allah tabarakallah waa isbaraygi koowaad midkeeni labaad sidaan ku soo baxay markuu 5 hours soo yaalay ama 5 saacadood kadib ma sha Allah tabarakallah dan waa miiraya ayaga dhan waa soo wada miiraysa kadibna caagadaha buufiska ku wada shubaya hadii uu fridge ku yaalo fridge-ka wada gashan kartaa hadii uu fridge ku oolina marba midkii aad isticmaalaysid aad sameysanaysa ma sha Allah tabarakallah fridge la'aan uu ka halaabaya muhiimada waa inuu qabow ku filan oo heli kara isbarayga hadda caagana ku shubanaya waa isbarayga labaad
waxaan rajeynayaa muuqaalkan juhdi badan ay iga baxayna like far badan saari doontid insha Allah sidoo kale aad sii share gareyn doontid halkan waxaa hadda ku darsanaa waxaa saliida organic hair treatment loo wada bagay timaha ka dhigayso kuwa xariira oo qurux badan madoobeynayso mar walba isbaray samaysanaysidna sirta kaliya waxaa inaad ku darsid mar walba saliid serum salkoose ama saliida caadi timaha u isticmaashid ku naasibtay inaad ku dartid markaas isbarayga waxtarkiisa arki kartaa haddana waxaa soo gudbay isbarayga saddexaad oo rosemary kaligiis ka diyaariyay maasha Allah tabarakallah timaha hadii barbanaan yihiin bidaar hadii aad leedahay tintaada hadii ku soo laabanayeen inta buu ka caawinaya rosemaryga aad waxtar u leeyahay sidoo kale timaha dhaqso uu soo celiyaa laakiin xasaasiyad hadii aad qabtid ha isku isticmaalin sababtoo ah tintaada wuxuu u keenayaa cad fara badan haddana waxaa ku darsanaya serumkii salka hoose quudiyaha nafaqeeyaha inta ba isku ahaa dan caaga furka saaraya dan sidaan oo igu soo baxay maasha Allah tabarakallah waa rosemary spray ama biyaha rosemaryga ugu dambeyntii isbareygii afraadna waa kana maasha Allah tabarakallah sidaan qurux badan oo igu soo baxay dhagayaraha caleenta saliisaytuunka oo laga sameeyay geed ahaanta iyo sidoo kale bay leaf waaye saddexda shay ka sameeyay isbareyga afraad insha Allah muuqaalka si fiican u fiirso inaad fahantid hadii aad rabtid haddii aad inta soo cabasho aad leedahay isbareyga aad ku dul istaagay cabashooyinkaaga dhan aad ku sheegay insha Allah isticmaal muhiimadu waxaa hal isbaray inaad isticmaal kartid timahagana u joogteyn kartid mar walba si aad u heshid timo caafimaad leh hadda waxaa ku darsaa waa saliida organic hair treatment oo ka qayb qaadanaysa bixinta timaha soo celinta nooleynta nafaqeynta intaba waa kana isbareygii afraad sidaan quruxda badan oo igu soo baxay maasha Allah tabarakallah afar isbaray aa kala dhicin best isbaray aad u isticmaal kartid timahaaga waa sirta kaliya timaha dhabar ku geyn karta haddii aad rabtid timahaaga inay ku baxaan sidoo kale iska sax productigaaga cuntada cunaysid hurdadaada biyo cabkaaga cabitaanadaada intaba markaas timaha ku noqon karaan kuwa caafimaad leh dhaqsina ku baxa insha Allah afar isbaray kaliya waa ka badin waaye muuqaal kale aan kaga soo sameynaa part 2 isbarayada ilmaha isticmaali kara waan soo wadaa insha Allah muuqaalkan meel fog gaarsiiya like noo dhaha na soo follow gareeya hadii aad YouTube naga daawanaysa subscribe noo saar hadii aad TikTok naga daawanaysa naga iloobin inaad follow na soo dhaadid si aad u gaarno 200k followers ah aad u maasantaa si qurux badan mar walba noogu xirantiin waxaan rajeynayaa muuqaalkan bilow ilaa dhamaad inaad ku raaxaysatay wax badan aad ka fahantay insha Allah wixii product tayo lana xarunta waa ka helaysaan talo iyo tusaale alaab la hubo intaba ku soo dhawaada gacmo furan iyo qiimo macquul ah dhamaantiin waa idinkaga mahadcelinaa muuqaalka gunti gabagabada aad soo gaarteen muuqaal lacayna inta kulmi doono sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi